بسم الله الرحمن الرحيم وعنو wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa labada bisha Juun sanadka 2026 maalin talaada ah qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay doomaha dheereeya ee dawladda Iran oo 20-miyada gaaraya ee lagu arkay marinka Hormuz maxay halkaasi ka qabanayaan Ra'iisul Wasaare Netanyahu madaxweyne Trump iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda Iran mid walba wuxuu doonayaa dagaalka in la soo gabagabeeyo laakiin saddexdooduba ruux kasta qaab ayuu doonayaa dagaalka in loo soo gabagabeeyo yaa guuleysan doona oo ugu dambeyntiisa la raaci doona warbixin ay falanqeyn arrintaasi ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa waxaan kaloo aan eegaynaa magaalada Gaza duqeynta maanta ka dhacday iyo diyaaradaha dagaalka Israa'iil iyo rasaasta ciidamada Israa'iil ay ku fureen dadka shacabka ah taliyaha cusub ee hay'adda Mossad ee Israa'iil oo durbaba weerar ku qaaday dawladda Iran kadib markii xilka uu la wareegay iyo qodobo kale ayaan kula wadaagayaa insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka adig iyo asaaga asal waad wadaagtaan arag iyo itaalka iyo inaayana ma dheeride aqoontaad ku dhaaftaa معهد نافع أونلاين waxa ay ku diyaarisay barashada higaada Carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka Quraanka Kariimka ah iyo sidoo kale culumta shariicada sida fiqiga xadiidka tafsiirka siirada iyo luqadda Carabiga halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه waxaan ku hormarayaa warbixinta ku saabsan Iran, Trump iyo Netanyahu yaa guuleysan doona. Muddo ka badan 3 bilood bariga dhexe waxa uu ku jiraa dagaal, duqeymo, hanjabaado iyo cabsi ay wajahayaan qaar ka mid ah dawladaha gobolka. Balse maanta waxa soo baxaya xaqiiqo cusub oo yaab leh. Madaxweyne Trump, Ra'iisul Wasaare Netanyahu iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya dawladda Iran dhammaantood waxay doonayaan in dagaalku gabi ahaan uu soo idlaado. Laakiin mid kasta wuxuu doonayaa in qaabka isaga danihiisa u adeegaya lagu soo gabagabeeyo dagaalka marka hore aan eegno madaxweyne Trump iyo sida uu doonayo madaxweyne Trump wuxuu u muuqdaa inuu gaaray gunaanud ah in dagaalka uusan sii socon kareynin danaha dalka Mareykanka marka la eego 3 bilood oo colaado ah kadib suuqyada shidaalka ayaa gariiray maraakiibta ganacsiga ayaa qatar galay dhaqaalaha dunidana waxa uu galay xaalad walaac leh sida daraadeed madaxweyne Trump oo doorasho galaya wuxuu doonayaa hal shay oo kaliya oo ah inuu ku dhawaaqo inuu soo afjaray dagaalka isla markaana uu dib u soo celiyay xasiloonidii gobolka bariga dhexe wuxuu cadaadis kala kulmayaa saaxiibadiisa gobolka iyo sidoo kale bulshada gudaha Mareykanka iyadoo doorasho ay dhici doonto November-ta inna soo haysa sidaas awgeed si xoogan ayuu madaxweyne Trump wuxuu u riixayaa in heshiis lala gaaro dawladda Iran wuxuu doonayaa in la adkeeyo xabad joojinta in dib loo bilaabo wada xaajoodyada isla markaana dunida uu tuso inuu yahay ninka joojiya dagaalkii ugu qatarta badnaa ee bariga dhexe soo mara sanadihii ugu dambeeyay laakiin halkaas waxa ka bilaabanaya dhibaatada qofka ugu horeeya ama ugu weyn ee madaxweyne Trump ka hor yimid dagaalka loo soo gabagabeeyay ma ahan Iran waa saaxiibkiisa ugu dhow gobolka Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu oo mar ay wada hadleen saacado ka hor uu ku tilmaamay inuu waalan yahay sidoo kalena uu ka badbaadiyay xilligan inuu xabsi uu ku jiro Netanyahu muddo dheer wuxuu doonayaa in Iran aan lagu joojin kareynin wada xaajood iyo sidoo kale heshiisyo la gaaro wuxuuna aaminsan yahay in fursad dahabi ah uu helay tan markii dagaalka la bilaabay Israa'iil waxay duqeysay xarumo military xarumo dhaqaale iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dawladda Iran goobo ay ku sugnaayeen gudaha Israa'iilna waxaa jira dad badan oo rumaysnaa in nidaamka Iran uu qarka u saaran yahay inuu burburo laakiin wax walba sidaasi uma aysan dhicin inkastoo qasaare weyn la gaarsiiyay dawladda Iran haddana xukuumadda Tehran weli way taagan tahay ciidanku weli way shaqeynayaan hoggaankoodana weli ma uusan burburin taasi waxay ka dhigan tahay in rayadii Ra'iisul Wasaare Netanyahu ee ahaa in nidaamka gabi ahaan la rido inaysan rumoobin hadda Netanyahu wuxuu wajahayaa xaqiiqo adag haddii dagaalku istaago Iran way badinaysaa oo way badbaadaysaa haddii Iran ay badbaadana micnuhu waxa uu yahay in yoolkii ugu weynaa ee dagaalka Ra'iisul Wasaare Netanyahu inaanan la gaarin sidaa daraadeed marka falanqeeyaal badan waxay rumaysan yihiin in Ra'iisul Wasaare Netanyahu uu doonayo in cadaadiska military la sii wado si dawladda Iran lagu qasbo tanaasul weyn ama loo abuuro xaalad gudaha ah oo qalalaasa dhalinaysa qalalaasahaasi siyaasadeedna isu bedeli karaya gacan ka hadal gudaha ah oo shaqadii ciidamada Israa'iil ay qaban doonaan shakhsiyaad Iiraaniyiin ah oo Israa'iil taageero ka helaya laakiin dhinaca kale Iran iyaduna waxay leedahay qorshaheeda gaarka ah Tehran ma doonayso dagaal aan dhamaad lahayn
dhaqaalaha dalkaasi waxaa saaran culays aad u weyn, cunaqabatayntii weli way jirtaa, khasaaraha dagaalkuna waa uu badan yahay. laakiin iiraan ma doonayso inay miiska wadaxaajoodka timaado iyada oo gacmaha kor u taagtay. waxay dalbanaysaa damaanad siyaasadeed iyo mid amni, oo waxay rabtaa in qayb ka mid a hantideeda la sii daayo. waxay doonaysaa cunaqabataynta qaar in laga qaado. waxay si gaar ahaaneed u doonaysaa in arrinta lubnaan lagu daro heshiis kasta oo la gaarayo. iiraan waxay qabtaa aragtida ah in haddii la doonayo xabajoojin dhab ah israa'il keliya inaysan joojin dagaalka iiraan, balse ay sidoo kale joojisaa weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka lubnaan. halkaas ayay lubnaan waxay ka noqotay marka furaha ugu weyn ee mustaqbalka gobolka. maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray heshiisyo qayb ka ahaa in la joojiyo dagaalka u dhexeeya israa'il iyo xisbullah. heshiiskan waxaa riixaya madaxweyne trump, gaar ahaan wasiirkiisa arrimaha dibadda. waxaa la sheegay in xitaa si toosa loola hadlay netanyahu si uu dagaal dheeraada u qaadin. laakiin su-aashii ugu weyni waxay tahay, israa'iil ma ilaalin doontaa heshiiskaasi mise sidii looga bartay ayay uga bixi doontaa? sababtoo netanyahu wuxuu caddeeyey in ciidamada israa'iil ay sii wadi doonaan howlgallada koonfurta dalka lubnaan, taasoo ka dhigan in xabajoojintu weli ay tahay mid jilicsan oo mar walba burburi karaysa. haddaba marka sawirka oo dhan la isu geeyo, waxaa muuqata in saddexdaasi dhinac ay doonayaan dhammaadka dagaalka, balse aysan isku raacsanayn dhammaadka iyo nooca uu noqonayo. trump wuxuu doonayaa heshiis deg deg ah oo uu ku sheegto in nabad uu ka keenay ama uu ka dhaliyay bariga dhexe. netanyahu wuxuu doonayaa damaanad xaqiijinaysa in dowladda iiraan mar dambe aysan khatar ku noqon doonin israa'il, awooddeedii dhanka hubkana gebi ahaan meesha laga saaray, sida gantaalada balastiga iyo hubka nuclearka. iiraanna waxay doonaysaa damaanad ilaalinaysa nidaamkeeda siyaasadeed, awooddeeda gobolka iyo danaheeda ay ku leedahay saaxiibadeeda gobolka. sidaa daraaddeed dagaalka maanta kuma xirna oo keliya gantaalada iyo diyaaradaha dagaalka, laakiin wuxuu ku xiran yahay miisaska wadaxaajoodka, taleefanada madaxda iyo heshiisyada qarsoon ee Tel Aviv, Tehran iyo Washington ay doonayaan, oo Qatar, Turkiga, Masar, Pakistan iyo dowlado kale oo Sacuudiga xitaa uu ku jiro ay ka shaqaynayaan. su-aasha hadda taaganna waxay tahay, yaa ku qasbi doona kan kale inuu aqbalo aragtidiisa? ma Trump, ma Netanyahu, mise Iiraan? yaana ugu dambeyn heli doona heshiis lagu ilaalinayo nidaamkiisa, dagaalkana gebi ahaan la joojiyo, sidoo kalena yaa guulaysan doona? jawaabta su-aashan waxay go'aamin kartaa mustaqbalka bariga dhexe sanadaha soo socda. adiga maxay kula tahay? aragtidaada qaybta hoose ku reeb laagsaan muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay. marinka hormus oo ah halbowlaha ugu muhiimsan ee maraakiibta shidaalka iyo ganacsiga dunida, mar kale wuxuu noqday meel indhaha caalamka ay ku sii jeedaan. sawirro cusub dayax gacmeedyada lagu qaaday ayaa muujinaya dowladda iiraan dhaqdhaqaaq aanan caadi ahayn oo dhanka ciidanka inay halkaas ay ka wado labadii maalin ee lasoo dhaafay, kadib markii la sheegay dowladda iiraan in 25 doomood oo ciidan saaranya u dirtay bartamaha marinka, kuwaasoo la rumaysanyay inay ka tirsan yihiin ciidanka ilaalada xeebaha ee dowladda iiraan. tani maahan oo keliya dhaqdhaqaaq ciidan oo caadi ah, waa fariin siyaasadeed iyo mid military oo si toosa loogu diraya dunida inteeda kale. marinka hormus waa meel ay maalin kasta boqolaal maraakiib ay ka gudbayeen, kuwaas oo wada fuustooyinka shidaalka. qiyaastii 5 meelood meel shidaalka dunida ayaan halkan ka gudbayay. maalmihii lasoo dhaafay, telefishinka dowladda iiraan ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya doomo dheereeya oo ka mid ah kuwa ay isticmaalaan ciidanka ilaalada xeebaha ee dowladda iiraan oo marinka ku sugan. saraakiisha dowladda iiraanna waxay sheegeen in ciidamadaas ay hagayaan maraakiibta, ilaalinayaan amniga, islamarkaana aysan u ogolaan doonin in maraakiib aanan iiraan fasax ka haysan in halkan ay ka baxaan ama ay ka gudbaan. laakiin sawirrada dayax gacmeedyada ayaa waxay muujinayaan wax ka weyn warbixinada telefishinka dowladda iiraan laga baahiyey marka lala barbardhigo sawirradii la qaaday 27kii May iyo 1dii bishan oo maalintii shalay ahayd. waxaana si cad u muuqanaya kororka weyn ee ku yimid tirada doomaha iyo maraakiibta dowladda iiraan ee marinkani ku sugan. waxaa sidoo kale la arkayaa raadadka muujinaya dhaqdhaqaaq joogto ah oo ay samaynayaan doomahani dheereeya. waxaa xusid mudan in labadii bilood ee ugu dambeysay aanan la arkin tiro intaasi la-eg oo doomo ah oo dowladda iiraan ee usoo dirtay aaggaasi. taasina waxay dhalisay su'aalo badan. maxay iiraan hadday u kordhinaysaa joogitaankeeda? maxayna tahay fariinta ay doonaysa inay dirto? falanqeeyaal badan waxay aaminsan yihiin in Tehran ay doonayso inay muujiso weli inay gacanta ay ku hayso mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan dunida, xilli gobolka uu wajahaya xiisada sii kordhaysa. iiraan waxay doonaysaa inay caddayso in haddii cadaadis lagu saaro ay awood ay u leedahay inay si dhow ula socoto, xitaa ay saameyn ku yeelato ee dhaqdhaqaaqa maraakiibta. ciidamada badda ee dowladda iiraanna waxay maalin ka hor ay sheegeen 28 markab inay marinkan ay ka gudbeen kadib markii iyaga ay hageen oo fasax loo siiyey.
hadalkaasina wuxuu muujinayaa dowladda iiraan weli inay xakameynayso marinka hormus iyadoo maraakiibta maraykanka iyo kuwa reer galbeedka dhowr jeer ay isku dayeen in si awooda halkaani looga gudbo. su-aasha ugu weynna waxay tahay dowladda iiraan maxay hadda u kordhisay tirada doomaheeda dheereeya ee halkaani ku sugan? ma waxay dareemaysaa culays iyo weerar gaadma oo ay ka shaqaynayaan maraykanka iyo xulafadiisa gobolka? aragtidaada nala wadaag, waxyaabaha ka soo kordhana waan kula wadaagi doonaa insha allah. dhinaca kalena 3 ruux oo falastiiniyiin ayaa lagu warramayaa inay shahiideen 9 kalena dhaawacyo ay soo gaareen maanta oo Talaado ah kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ee duqeymo ay ka fuliyeen gudaha magaalada Gaza, halka ciidamada Israa'iilna ay rasaas ay ku fureen. xoogagga iska cabinta ee Xamaasna waxay wadaan dhankooda wadahadallada siyaasadeed ee ay la yeesheen madaxa sirdoonka dowladda Turkiga Ibrahim Kalin iyo mas'uuliin kale oo dowladda Turkiga ka tirsan. sida ilawareedyada ay sheegayaan, markaa magaalada Gaza waxaa lagu dilay dhalinyaro kuwaas oo rasaas ay ku fureen ciidamada Israa'iil xilli ay ku sugnaayeen xaafadda Xamad lagu magacaabo ee waqooyiga magaalada Khan Yunis ama xaafadda Khan Yunis. guud ahaanna xaafadan waxay dhacdaa koonfurta magaalada Gaza. sidoo kalena 1 ruux ayaa la sheegay inuu dhintay, 5 kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ee aan duuliyaha lahayn ee duqeymo ay ka fuliyeen goob dad rayid ay ku sugnaayeen agagaarka xaafadda Bi'r Abu Saalax ee degmada Az-Zuwayda oo bartamaha magaalada Gaza ah. sidoo kale cisbitaalka shuhadada ee Al-Aqsa waxaa la sheegay in la dhigay dhowr ruux oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen oo ka mid yahay oday 47 sano jir ah kaas oo la sheegay waxyeello daran inay ka soo gaartay duqeynta diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay fuliyeen. inkastoo markii dambe la sheegay aabbahaasi oo Khamiis Maxamuud lagu magacaabo inuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray mar dambe. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in 24kii saac la soo dhaafay la diiwaan geliyey 8 ruux oo dhaawacyo ah, iyadoo weli ay jiraan qaarkood inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay sida wararku ay sheegayaan. isla waqtigaasi ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay dileen 5 ka mid ah Falastiiniyiintii ku sugnaa magaalada Gaza, iyagoo sheegay inay qorsheynayaan weerar ka dhana ciidamada Israa'iil, iyadoo Israa'iiliyiinta isballaarin ay ka wadaan magaalada Gaza oo dhowr saldhig ama dhowr bar kontaroolna ay ka samaysteen xarumo dhowr ah oo gudaha magaalada, gaar ahaan koonfurta, bartamaha iyo waqooyiga magaalada Gaza. wax walba arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. like sar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. agaasimaha cusub ee hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad Roman Goffman ayaa waxa uu shaaca ka qaaday kadib markii xilka uu la wareegay in Israa'iil ay ku guuleysatay inay xogo badan oo qarsoon ay ka heshay gudaha dalka Iiraan. waxaana uu leeyahay hoggaanka ugu sarreeya Iiraan hadda waxay wajahayaan jab aad u weyn kadib dagaaladii ugu dambeeyay sida uu hadalka u dhigay. hadalkan wuxuu jeediyey kadib markii uu agaasimahan ula wareegay hay-adda sirdoonka, waxaana uu leeyahay Mossad waxaan ku ammaanayaa doorkeeda qarsoon, gaar ahaan shaqaalaha, maadaama ay yihiin codka iyo awoodda aamusan ee Israa'iil. durbaba ninkan wuxuu weerar uu ku qaaday markaa ee dowladda Iiraan. magacaabistiisa waxay ku soo beegantay xilli Mossad iyo guud ahaan hay-adaha ammaanka ee Israa'iil ay diiradda ay saareen Iiraan, Xisbullah iyo kooxaha kale oo Israa'iil ay ku tilmaamtay inay qayb ka yihiin dhidibka Iiraan ama qaybta Iiraaniyiinta ama Shiicada oo ay la dagaalamayaan. dhinaca iyo Lubnaan koonfurta haddii aan eegnana 14 ruux ayaa lagu warramayaa maanta gelinkii dambe inay geeriyoodeen kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ee halkaas ay duqeymo ay ka fuliyeen. koonfurta Lubnaan ayaa wajahaysa dagaalkii ugu adkaa. Iiraaniyiintana waxay ku adkaysanayaan in Lubnaan lagu soo daro qorshaha wada hadalka. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Marco Rubio waxa uu taagan yahay Iiraan weli waxay soo saarayaan diyaarado badan oo drones ah, waqtiga ayayna ka faa'iideysanayaan. Tehraanna waxay tiri wadahadallada Lubnaan waxay qayb ka noqon doonaan heshiis kasta oo la gaarayo. insha Allah waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa. like sar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. falanqayntii qaybta waa naga intaa mid lamid intaa ku kulmi doona. dowladda Ruushka ayaa mar kale waxay dib u soo celisay adeegsiga diyaaradaha dagaal ee casriga Su-57. diyaaradaasi ayaa waxay ka mid tahay diyaaradaha jiilka shanaad ee Ruushka uu sida rasmi u howlgeliyey. warbixino cusub ayaa soo baxaya waxaana ay sheegayaan in bishii May la soo dhaafay diyaaradahan ay howlgallo ay ka fuliyeen gudaha dalka Ukraine, iyaga oo weerar gantaale cruise loo adeegsaday ku bartilmaameedsaday magaalooyin dhowr ah oo Ukraine ka tirsan. tallaabadan waxay timid muddo ay yaraatay dhaqdhaqaaqa diyaaradahan, gaar ahaan markii diyaarad aan duuliye lahayn oo Ukraine laga leeyahay ay weerar ku qaaday saldhig military oo ku yaala gudaha dalka Ruushka. hase yeeshee waxay u muuqataa Moscow inay dib u soo celisay diyaaradan si ay kaalin weyn uga qaadato duqeymaha ka soconaya furmaha dagaalka.
sababta warbixinta laguma sheegin dib diyaaradani loogu soo celiyo hawada dalka Ukraine iyada oo diyaarado kale oo ka awood hooseeya ee Ruushka u isticmaalayay. Ma waxaa jira culays weyn oo Ruushka u dareemay mar raadaaro cusub ayaa la geeyay gudaha dalka Ukraine oo diyaaradda ma waxaa la doonayaa raadaarada inay ka dhuumato waa waxyaabaha la isweydiinayo. Ruushka ayaa wuxuu hore u sheegay qaar ka mid ah diyaaradihiisa inaanay ka qaybgeli doonin howlgallada ee dagaalka ka soconaya dalkaasi Ukraine. arrintaasna waxay ka dambeysay wixii ka dambeeyay markii Ukraine dhowr jeer ay sheegatay inay diyaarado casri ah Ruushka ay ka soo riday. Istaraatiijiyadan ayaa Ruushka siinaysa faa'iido weyn maadaama diyaaradda dagaal ee Su-57 ay ka fogaanayso nidaamyada difaaca cirka ah ee Patriot iyo kuwa kale ee Ukraine la geeyay, taasoo la micno ah in diyaaraddu ay weerar fulin karto iyadoo si toos ah aanan ugu dhowaanin goobaha dagaalka, sidoo kalena nidaam difaaceedka uusan soo qaban. mid ka mid ah hubka ugu muhiimsan ee diyaaradda adeegsato waa gantaalka loo yaqaano KH-69. gantaalkan ayaa leh masaafo gaaraysa ilaa 400 kilomitir, waxaana uu duuli karayaa isagoo joog hooseeya ku socda mararka qaarkii ilaa 20 mitir oo keliya ayuu ka sarreyn karayaa oogada dhulka. arrintaasna waxay ka dhigaysaa mid aad u adag in raadaarada iyo nidaam difaaceedyada cirka ay ogaadaan ama ay ka hortagaan. haddaba maxay tahay diyaaraddan Su-57? waa diyaaradda dagaal ee ugu horumarsan dalka Ruushka. waxaa loogu talagalay inay isku darto 3 awoodood oo waaweyn: qarsoodi ama inay raadaarka ka dhuuman karto, awood dagaal oo aad u culus, iyo dhaqdhaqaaqa hawada oo aad u sarreeya. khubaro badan waxay aaminsan in diyaaraddan aysan gaarsiisnayn heerka qarsoodiga ee diyaaradaha Mareykanka, laakiin waxaa la sheegaa inay aad u qarsoodi badan tahay kana awood badan tahay diyaarada qaarkood. inta badanna jiilka afraad ee maanta dunida laga isticmaalo ayay kasii awood badan tahay. diyaaraddan waxaa ku rakiban raadaar casri ah kaasoo awood u leh inuu mar kaliya ula socdo bartilmaameedyo badan oo ku kala sugan hawada, dhulka iyo sidoo kale dhanka badda. laakiin reer galbeedku diyaaraddan aad bay u xaqiraan oo waxay yidhaahdaan awood la mida kuwa diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ma lahan. mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan ee diyaaraddan ayaa ah nidaamka dagaalka elektrooniga. nidaamkan ayaa loogu talagalay inuu jahwareeriyo raadaarada cadowga, maran habaabiyo gantaalada kusoo wajahan, islamarkaana uu kordhiyo badbaadada diyaaradda marka ay howlgal adag ama dagaal adag ay ku jirto. marka loo eego awoodda ay ku qaadi karto ilaa 10 tan oo hub ah, masaafo howlgal oo ka badan 1500 kilomitir, iyo isku darka qarsoodiga oo raadaarka ay ka dhuuman karto, gantaalada fogaan ridka iyo awoodeeda ee aadka u sarreysa, diyaaraddan maanta waxaa loo arkaa mid ka mid ah hubka ugu casrisan ee ciidamada dowladda Ruushka ay haystaan. dib ugu soo noqoshada furmaha dagaalka ee dalka Ukraine waxay muujinaysaa in Moscow ay doonayso inay xoojiso weeraradeeda dhanka hawada, isku dayda inay cadaadis dheeraad ay saarto nidaamyada difaaca ee dowladda Ukraine xilli dagaalka uu galay marxalad cusub oo labada dhinac isku dayayaan inay faa'iido istiraatiiji ay helaan. waxaan si dhow ula socon doonaa insha Allah horumarada ku saabsan dagaalka Ukraine iyo doorka sii kordhaya ee diyaaradda Su-57 ee ciidamada Ruushka adeegsanayaan.